Israa'iil waxay shaacisay in ay dileen mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda Iiraan. Waxaa Israa'iil ay sheegtay in markaan ay u soo jeesteen qaarijinta hoggaanka ugu sarreeya dalkaasi wixii ka dambeeyey markii dhowaan ay ka qayb galeen bannaanbaxyadii ka dhacay magaalada Tehraan oo caasimadda dalka Iiraan ah. ciidamada Israa'iil hadda waxay sheegeen inay dileen taliyihii ciidanka abaabulka dadweynaha ee Basij loo yaqaano Ghulam Reza Suleimani. sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga ee Israa'iil ayaa sheegtay in la beegsaday Cali Larajani, xoghayaha golaha amniga qaranka ee dowladda Iiraan. Tel Aviv waxay sheegtay in taliyaha Basij lagu dilay weerar dhanka cirka ahaa oo bartilmaameedkiisa uu saxnaa oo shalay ka dhacay magaalada Tehraan oo caasimadda dalka Iiraan, kaas oo ay sheegeen in lagu fuliyo xog sirdoon oo ay bixiyeen hay-adaha militariga. laakiin kanaalka 14aad ayaa baahiyay in Suleimani lala dilay 10 hogaamiye oo kale oo ka tirsan ciidanka Basij loo yaqaano, kuwaas oo ku-xigeenkiisii iyo xubno kale ay ka mid ahaayeen. Israa'iil waxay sheegtay Suleimani in muddo 6 sano ah ciidanka Basij uu hogaaminayay, isla markaana door uu ka ciyaaray sida ay ku eedeynayaan caburinta mudaharaadyadii gudaha ka dhacay. laakiin waxay ku eedeeyeen inuu qayb ka ahaa dilal ka dhacay gudaha dalkaasi Iiraan. marka taa laga yimaado waxay sheegteen bartilmaamaysiga Cali Larajani, waxaana yidhaahdeen ma jirto fursad uu ku baxsan karay. waxay arrintan ay imaatay iyadoo shalay Cali Larajani qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka oo uu kaga hadlayay dagaalka soconaya. Cali Larajani nin sahlan ma ahan, waan kula wadaagi doonaa macluumaadkiisa. dowladda Iiraan ilaa iminka arrintan kama aysan hadlin. warbaahinada qaarna oo dalkaasi Iiraanna waxay baahinayeen in Cali Larajani khudbad uu jeediyey lasoo bandhigi doono, taasoo muujinaysa inuu weli nool yahay. Israa'iil waxay sheegtay Cali Larajani oo muhiim ahaa inay muddo baadigoobayeen, isla markaana markii ay fursad ay ku heleen maalintii shalay ay ku duqeeyeen magaalada Tehraan. waxay sidoo kale sheegeen inay goobo muhiim ah ay bartilmaamaysadeen saacadii lasoo dhaafay. warbixinta mas-uuliyiinta dowladda Iiraan ee Israa'iil ay soo saartay ma waxaa la doonayaa in lagu damiyo hadalhayntii ka dhalatay arrinta ra-iisul wasaare Netanyahu ku saabsan, oo muuqaaladii lasoo bandhigay si weyn loo falanqeeyey laguna tilmaamayay inay ahaayeen kuwa caqliga macmalka ah. Cali Larajani wuxuu ahaa mid ka mid a mas-uuliyiinta ugu muhiimsan marka la eego dhanka iyo dowladda Iiraan iyo dagaalka soconaya. isaga wuxuu si weyn uu kaga soo horjeeday dhowaan in Mujtaba Khamenei la doorto, waxaana uu aaminsanaa in aan laga dhigin hoggaanka ugu sarreeya dalkaasi Iiraan sida dhaxaltooyo oo kale. laakiin wuxuu ahaa gacanta midig ee Ayatullahi Cali Khamenei, wuxuu ahaa mid ka mid a madaxda ugu sarreeya ee dalkaasi. horey Israa'iil ayaa hanjabaado u soo saartay oo waxay yidhaahdeen Mascuud Pezeshkian oo madaxweynaha, Cali Larajani iyo guddoomiyaha baarlamaankaba waan beegsan doonaa. wasaaradda gaashaandhigga ee Israa'iil ayaana qoraal soo saartay. haddii marka sheekadan ay dhab noqoto, Iiraan waxay weynaysaa mid ka mid a mas-uuliyiinta ugu muhiimsan ama gacanta midig. wax walbaana dhanka dowladda Iiraan ayay ka caddaan doonaan. ninkan wuxuu ahaa madaxa amniga qaranka marka laga hadlayo marxaladaha hadda la joogo. wuxuu ahaa xogayaha ugu sarreeya golaha amniga qaranka ee dowladda Iiraan. waa qof si toosa uga agdhow hoggaanka ugu sarreeya dowladda Iiraan. waxa uu ku lug leeyahay go'aamada dagaalka iyo dhanka nabadda. waxa uu og yahay siraha ugu qotada dheer ee barnaamijka nuclearka, ciidanka ilaalada kacaanka iyo xiriirka Iiraan ay la leedahay kooxaha kale ee ka dhisan gobolka. marka dhanka siyaasadda iyo militariga la joogana, wuxuu ninkan uu hore u soo ahaa guddoomiyihii baarlamaanka, wakiil ayuu soo noqday oo waxuu ahaa kuwa ugu muhiimsan marka laga hadlayo xiriirada siyaasadda iyo sidoo kale ciidamada ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan iyo ciidanka Basij loo yaqaano. sidaa daraaddeed wuxuu ahaa nin xog weyn ka haya nidaamka gudaha ee dalkaasi Iiraan. waxa sidoo kale lagu tilmaamaa qof la aamini karayo xilliyada qalalaasaha oo kale. dhowaan ayuu ninkan ka soo muuqday isku soo bixi ka dhacay magaalada Tehraan oo caasimadda dalka Iiraan. mararka qaarkiina Cali Larajani qoraallo ayuu Twitterka uu ku soo qorayay. markaad Twitter isticmaalayso locationka iyo waxyaabaha la midka ahna way sahlanaan karaysaa in la ogaado halka aad ku sugan tahay. waxaan sugaynaa dhanka iyo dowladda Iiraan jawaabta arrintan ay ka bixiso. haddii sheekadan dhab ay noqotona, nin weyn ayaa ka baxay mar kale dowladda Iiraan. like-saar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada, wad mahad ku celi. suuragal ma taha marka saacadii ugu dambeeyay maadaama wadahadal iyo isu soo dhowaansho iyo isdhiibid madaxweyne Trump ay dhankiisa inay ka socoto, taasba inay qayb ka ahayd khiyaanada, maadaama madaxweynaha Mareykanka uu sheegay inay doonayaan laxaajoodka dowladda Iiraan, laakiin ay dowladda Mareykanka ku wareersantahay cidda ay la xaajoonayso, isagoo sheegay inaysan isfahmaynin madaxda ugu sarreysa dowladda Iiraan oo uu sheegay inay xitaa uu ku tilmaamay xagjiriin iyo waxyaabaha la midka inay yihiin. marka saacadii ugu dambeeyay markaad eegto hadaladii soo baxay ee isdhuldhigada iyo waxyaabaha la midka suuragal ma tahay inay qayb ka ahayd in dowladda Iiraan lagu qiyaano mar kale,
lagana faa'iidaysto dhaqdhaqaaqooda si loo ogaado halka ay ku sugan yihiin. waan arki doonaa arrimahan waxyaabaha ka soo kordha dhanka iyo dowladda iiraan iyo jawaabta ka timaada. like sar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay.